بسم الله الرحمن الرحيم waxaan tacsiyo ugu dirayaa dhammaan shacabka oo dhan dawladda dhibaatadii soo gaadhay suuqa Taiwan ee cusub halkaas oo ahayd ganacsi ay dad badan in noloshooda ay ku nooshahay dhaqaaluhu waa waxa wadan walba hormariya ganacsatadu oo anagu aan kamid nahay waa waxa shaqo abuura marka tacsidaas aad iyo aad bay noo damaqday haddaan dahabshiil lahayna aad iyo aad baan uga xudnahay sidaas awgeed baan socdaalkan anigoo maamulka shirkadda matalaya aan u yimi madaxweynahana kula kulmay wasiiradana iyo madaxda kalena kula kulmay lacag ilaa 20 milyan ah oo lacagta Ethiopian birka ah ayaanu ku dhawaaqnay waxaan kale ugu dhawaaqaynaa dhammaan shacabka ina daawanaya ama ha jooga wadanka gudihiisa ama ha jooga wadanka dibadiisaba inay dadkooda walaalahooda dhaawacmay ee dhibaatadu soo gaadhay ay account-ka ay dawladdu soo saari doonto ama ay shaacisayba lagu shubo oo halka lacagta laga shubo waliba anagu waxaan raacinaynaa dadka qurbaha lacag ka soo diraya maadaama dahabshiil uu 100 wadan adduunka ku yaala ka shaqeeyo cid alaale cidii lacag soo diraysa ee gudida la magacaabay ama account-ka ay dawladdu magacaawday ku soo shubaysa inaana wax khidmada ama wax service aan ka qaadan aad iyo aad baan dadka ugu dhiirigelinayaa inay dadkooda walaalaha caawiyaan meel ay joogaanba. Assalaamu calaykum.